14 Oktoobar waa maalin xusuus iyo murugo ku reebtay quluubta ummadda Soomaaliyeed. Waxaa laga joogaa 2 sano maanta oo kale, saacadu markay ahayd 3:30 daqiiqo galabnimo. Waxaa magaalada Muqdisho ruuxay qaraxii ugu weynaa ee abid ka dhaca Soomaaliya. Waxa uuna qaraxa ka dhacay isgooska zoobe ee magaalada Muqdisho. Qaraxa waxaa loo adeegsaday baawur TM oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa. baawurkaasi waxa uu soo gudbay baro kontarool oo dhinaca amniga ah, kuwaasi oo la dhigay jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye. Baraha ugu weyn ee uu ka soo gudbay baawurkan waa tan lagu magacaabo siinka dheer, waxaana soo dhaafiyay damiin, iyadoo barta labaad ee X control uu baawurkaasi bixiyay canshuurtii xamuulka saarnaa. waxaase baawurkaasi lagu joojiyay bar kontarool oo ku taala Sebiano, halkaasi oo muddo lagu hayay. marka darawalka baawurka uu dareemay inuusan gudbi karinna uu si baxsad ah ku soo dhaafay, kadibna daqiiqada kadib uu ku qaraxay isgooska zoobe. Saraakiil dhinaca sirdoonka ah waxa ay sheegeen in ugu dambeyn bartilmaameedkiisu ahaa saldhigga Turkiga ee Soomaaliya. dadka ku dhintay qaraxan, guddiga taakuleenta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ee loo xilsaaray taageerada dhibanayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay ku dhinteen 587 qof. taasi waxay ka dhigaysaa weerarkii argagixisada ugu dhimashada badnaa ee qaaradda Afrika, waana mid ka mid ah weeraradii argagixisada ugu cuslaa dunida oo dhan. in badan oo ka mid ah ehelada dadka ku nafwaayay waxaa u suura gashay inay helaan meydka eheladooda, ayna aastaan kana samraan, balse waxaa jira dad badan oo aan helin eheladooda xitaa cad ka mid ah jirkooda. guddiyada u xilsaarnaa gurmadka qaran waxa ay diiwaangeliyeen in 10 maalmood kadib marka qaraxa uu dhacay ay guud ahaan la soo xiriireen dad dhan 225 qof, kuwaas oo ay qoysaskooda sheegeen inaysan nolol iyo geeri midna ku haynin. tiradaasi markii dambe way isbedeshay, waxaana la xaqiijiyay kuwa badan oo dadkaasi lala ka mid ah inay dhinteen, inkastoo ay jireen dad kooban oo iyaguna la ogaaday markii dambe inay nabad qabaan. waxaase ay xaqiijiyeen guddigu in ay jiraan dad fara badan oo aan weli helin eheladooda, kuwaasi oo la garowsaday inay dhinteen, lana siiyay taageeradii dhaqaale ee gudaha iyo dibadda looga deeqay. 14 Oktoobar 2017 Cabdirashiid Mukhtaar Sheekh oo 25 jir ah waxa uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala degmada Kaxda, waxa uuna u soo socday isgooska zoobe oo uu u soo doontay inuu shirkad ku taala halkaasi lacag uu ku iibsado baawur si uu ugu shaqeeyo qoyskiisa cusub. Qadra Carab Cabdi waxa ay xilligaasi isqabeen Cabdirashiid muddo 10 bilood ah kaliya. Qadra iyo eheladii kale ee Cabdirashiid waxa ay u dhaqaaqeen baadigoob. waxa ay tagtay isbitaalada magaalada intooda badan si ay uga soo dhex eegaan bal inuu ku jiro dhaawacyada la geeyay. waxa ay eegeen boqolaal meyd ah, iyaga oo rajeynayay bal inay ka dhex gartaan. marka uu reeso qarax u dhaca waxaan lagu dhahaa Cabdirashiid soo jooga isbitaal buu yaala, dhaawac waaye, isbitaal uu yaala, isbitaalka Digfar buu yaala. Digfarkan oo raadinayna habeenkii 12 oo raadinayna waa ka weyne. meydadkii aan wada dhaxgalnay meydadkii ka taad gureennay isbitaal Madiina, meydadkii aan dhaxgalnay dadkii go'gaay iyo wixii kasta dhan waan wada dhaxgalnay. wax aan isxanuunsay heeday Cabdirashiid u garanaysin waan ka weynay. marka nin hadda ka tagay hadda saan ka tagay hadda qofku meydkiisa xitaa aad maxay heeday aad aasato wax weyn bay tahay sooma. haweenka markaad meydkiisa ka raadiseen Digfar ee aad weyseen, maalintii ku xigtay halkee tagtay? maalintii ku xigtay waxaan tagnay Digfar aan ku noqonay. dhowr maalin aan Digfar ku noqonay. haddana isbitaal Madiina aan aadnay, isbitaalka Daarushitaan aadnay, isbitaalada dhanaa isku wada marnay. waxa xamar Muqdisho isbitaalka inta la dhahaa dhaawacyada la geeyo dhanaa isku wada marnay. maalintii saddexaad keesanayaan aadnay. adiga isbitaalka baan marna kan baan ka bixinay, marna kan baan galayna. markaad raadinaysay ma waxaad ku raadinaysay wejigiisa, ma dharku xirnaa, ma kabaha, marna mi istire meyd buu u yara egyahay ama qof meel yaala? meydad badan oo halka aan aragnay waa loo yara maleeyay, laakiin maysan noqonin. mar maxay aheeday meyd isbitaal Madiina waxaa dhahay isaga waaye, waan fiiriyay isaga meel aan isdhaho oga hongaran waaye, isaga ma ahan aan dhahay. markii dambe wax yar aan joogno meydkii dadkii lahaaya u imaadeen oo qaateen. marka sidaasaa lagu waayay isaga. imise qof oo meyd ah ayaad fiirisay? wax badan wax meydkiiba waxaa dad iska go'ay u badnaayeen. waan dhaxgalno dhaxan fiirino wax tira ma laha, wixii la fiiriyay tira ma laha. dhowr boqol ay gaarayeen. hooyo Saciido Guudle Cumar waa hooyo dhashay Faraxiyo oo ay ku weysay qaraxii zoobe ka dhacay 14 Oktoobar, waxaana ay ka warbixinaysaa taariikh nololeedka walaasheena Faraxiya. bismillahir rahmaanir rahiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Faraxiyo waxay ahayd
gabar maasha allah gabadheeda midda hadda maanta saaxiibteeda ah aan maxaan dhihi lahay aan gabdhahayga maanta ugu jeclaay inkastoo aan qarsanayay gabdhahayga iga ugu jeclaay maanta alxamdulillaah ilaahay mahadiis ilaahay baariyada ii ahayd maasha allah gabar wax soo aan badan aan aad iyo aad ugu soo dadaalay ahayd aan soo barnay aniga aabaheeda isla wada jarno aan soo wada barnay 114 waa soo dhameysay haddana waxay soo dhigatay dugsiga almasar ay maxaan dhihi lahay hoose iyo dhexe iyo saraba ku soo dhameysay iyadoo si degdeg ah uga baxday maxaan dhihi lahay dugsiga sare marba sanadka dambe oo intay gasho bremi ayadoo yar haddana waxaa la geeyay 12 jir ah jaamacadda banaadir hadda waa la diiday waxaa la yiri gabadhan waa gabar yar jaamacadda ma dhigan karto marka aabeed wuxuu yiri gabadheeda waa dhigan kartaa wayna awoodaa hala imtixaana laga qaaday alxamdulillaah way ku baad sidaas loo ogolaaday inay noqoto ardayda jaamacadda banaadir ma markasta aan hilmaami karin aadan u hilmaami karin maxay ahayd maalin ayaa maxay aaday maxaan dhihi lahay seminar aan ogeyn oo aabeedna ogeyn jaamacaddana saas ay uga baaqatay halkaas maalin waxaa laga soo siiyey seminaarka 200,000 oo shilin Soomaali anigana waxaan ku jira umul gabadheeda ugu yartahaani dhamasheeda ahay marka 200 igu soo adeegtay wixii ka soo haran gacantay waa lacagtay ugu horeysay ay keentay iyadoo jaamacad dhigatay alxamdulillaah marka farxii baariyadeeda ahayd ilaahay jannada ha siiyo inay i duugtaan jeclaay cabdinaasir cabdulaahi macalin oo 30 jir ah waxa uu ahaa darawal ku shaqeysta baabuurta waaweyn ee xamuulka ka qaada degada magaalada Muqdisho una kala gooshta gobolada dalka 14 Oktoobar 2017 cabdinaasir waxa uu xamuul ka keenay degada magaalada Muqdisho waxa uuna baabuurkiisa marayay isgooska zoobe marka uu qaraxa dhacay aabihiisa cabdulaahi macalin cabdiraxmaan waxa uu maalintaasi ku sugnaa tuulo u dhow magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud أنا طبعا ضريبة محمد شوقي بدل هذا سيبات شوقي ضد أي بلغة أصحابها ضد أنا يسوى شيء يحقي شيء يري من كاس الله النهار سال كاس ومارتي بركاس ومري مركي قرح دعي بركاس ومري ودكده ويسوي تجي أوركم دكده وراتك سوق على اللي يري دكده كوي أول سوي تجي أو حتى يري السوق عن قرآن يري السوق كله كواسا حتى كمل هاي ماشي وحكد عين ما تكتي واتجي واتجي ماشي waxaan tagay burburkii oo maartay guriga waxna la dhistay waxna maartay hadda wali ay qabyo ahaayeen oo la dhisay waxna aan la meeshii ba burburkii ba loo tagin hadda meeshii maxaan ka sheegayaa waa tagay maxaad dareentay markaad tagtay waa gaari waxaan dareemay qof kasta oo islaam ah oo maartay beerkeeda maartay meeshii oo ku dhintay oo qofka halaag ku qabsaday qof kasta oo naxdintii ay naxilheed iyo tirayadii qabaleed waa iska qiyaasi kartaa adiga awlaad oo maartay ilaahay ku siiyey oo aad soo koriday oo wax soo bartay meeshii ay ku dhibaatootay oo dab aan caadi ahayn oo kursaday hadde meeshaas waxaan umalaynaa inaan meel lagu raaxaysto maahan ilo fiirfiirinteeda iyo joogjoogiddeeda xanuunka iyo murugada ehelada dareemayaan ilaa maanta ma ahan mid ay qiyaasi karaan dadka aysan soo marin dhibaatadaasi oo kale kasoo murugada waxa ay ka siman yihiin eheladan calool adeega iyo sida iimaanku ku jiro ee ay ugu samreen masiibada ku habsatay iyaga iyo boqolaal kale oo qoysas Soomaaliyeed ah qadra carab cabdi waxa ay xiliga saygeeda dhimanayay ay lahayd uurkeedii ugu horeeyay goorta ay la noqotay inay ka samarto saygeeda oo xiligaasi isqabeen 10 bilood kaliya markaan u raadinayna markaan waxay raqiis iyo ruuxiisa weyn qofka bini'aadanka daadweyso waa ku qasban tahay moogta inaad samartay maalintee bay ahayd markaad istiray waa daashay yaa soo jeediyay in la samro 12 bari adig markay ka soo wareegtay ka bacdi la iska fadhiisano isdhaxnay ahayd waa isbitaaladii dhanna aan ka wada fiirinan ka weyn weligii ma la waayay oo meelo ma iska aaday isagoo waxba idin sheegin bilo iyo sanado ma iska maqnaaday maya weligii yaalihiis lama weynin hadduu wax yar meel u aadi xitaa wuu soo wici jiray aba halkaasaan joogaa ay ahayd saasa jirta halkaasaan joogaa taleefonka xitaa caal hadda dabla-aan ka yahay xitaa wuxuu dhihi jiray dabla-aanu iiga dhimi rabaayo ogow weligiis ma dhicin inuu maxay ahayd intaasoo bilood la waayo oo meel iska galo marmar ma is dhahdaa ilaan qof uu ka maqan yahay oo ehelkiisa u dhow baa tahay
marmar ma is dhahdaa ma dhimanin oo waxaa laga yaabaa isagoo socda ayuu imaanayaa waan isdhihi jiray marmar maxay ahayd inta hore oo dhan waxaan dhihi jiray waxaa laga yaabaa inuu maxay ahayd iska imaado oo meel iska jiraa laga yaabaayo maxay ahayd qaraxii oo dad cararayo waashaa la sheegaayo dadkaas carare muu ku jira xabsi muu ku jira mar xabsiyada xitaa waan ka raadinay marka waan isdhahay laakiin hadeer waxaan umaleynaa abdirsiida nool lagama yaabana intaasoo bilood inuu maqnaado marka waa uun ka samirnay hadda xabsigee tagtay xabsiyaal badanaa CID iyo meel dad lagu dhahayo waxbaa lagu qabtay iyo waxbaa lasoo fasiiriyey xarakada al-shabaab ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxaasi bishii Febraayo ee sanadkii 2018 ayaa maxkamadda militariga waxa ay xukun ku riday dad lagu helay inay ku lug lahaayeen abaabulka iyo fulinta qaraxii Zoobe iyo weliba qarax kale oo isla maalintaasi ka dhacay agagaarka xaruntii hore ee Somali Airline ee degmada Wadajir. Baaritaanka ay dawladda sameysay waxaa ka soo baxay in labada qarax ay xiriir lahaayeen. Xasan Aadan Cisaaq oo waday baabuurka caasiga ayaa lagu helay inuu lahaa isku dabaridka labada qarax markii ay Muqdisho soo galeen, waxaana lagu xukumay dil toogasho. Maxkamaddu waxaa kaloo Ibrahim Xasan ku xukuntay xabsi daayina. waxay ku heshay inuu baabuurka geystay qaraxa Zoobe iyo baabuurka kale uu u iibiyey xarakada al-shabaab si qaraxyada loogu fuliyo. Waxaa kale oo maxkamaddu 3 sano oo xabsi ku riday Cabdiwali Axmed Diiriye oo maxkamaddu ku heshay inuu qayb ka ahaa qaraxii ka dhacay isgooska Zoobe 14 Oktoobar sanadkii 2017.